2026 YouTube waxa uu bilaabay inuu si qarsoodi ah u dilo journalists yaryar ama kuwa caalami ah iyagoo sameeyo qaladaadkan yaryar every single day. So videoga maanta waxaa kugu wadaagi doonaa 3 shay oo aad samayso si maalinle ah haddana khatar ku ah channelkaaga. lambarka koowaad waxa waaye isticmaalka tags galdan. 2026 algorithmka YouTube kaliya ma fiiriyo videogaaga ee waxa uu fiiriyaa metadata ku jiro videogaaga gudihiisa haddii ay yihiin title, haddii ay yihiin tags ama thumbnail, everything oo videogaaga gudihiisa ku jiro. laakiin dadka badankood waxay u maleeyaan haddii ay isticmaalaan tags badan ay ka dhigan tahay in videogooda gaari doono dadyo badan ama ay heli doonaan views badan. laakiin taas ma aha. haddii aad isticmaasho tags galdan ama aanan related la ahayn videogaaga, algorithmku waxay u keeni doontaa confuse. waana 2026 waxyaabaha ugu badan ee journalistka hoos loogu dhigo ama lagu dilo. So iska ilaali inaad isticmaasho hashtags aan la xiriirin videogaaga ama aanan jirin. haddii aad tahay creator ama rabo inuu channelkiisa koriyo ama waxyaabo badan ka ogaada YouTube growthka, soo subscribe garay. Number 2 waxa waaye copyright iyo AI content. haddii aad isticmaasho clips ay dad kale leeyihiin ama AI content adigana waqti badan aan soo gelin, YouTube wuxuu kugu samayn doonaa automated takedowns. midaan halkeeda waa very easy. waxaa samaysaa codkaaga inaad ku darto ama inaad value meeshaasi kusoo kordhiso oon hore ugu jirin. halkeeda waa fudud yahay midaan. lambarka ugu dambeeyo iska fiiri checklistkan aan halkan kusoo dhigay dhammaantooda inaad haysato ama aad isticmaasho. Number 1 iska fiiri metadatagaaga hadduu yahay title ama tags. Number 2 ha isticmaalin softwareska get subs fast oo inta badan journalistka lagu hiro. waa inaad subscribers si easy ah ku raadsato botisna ay kasoo subscribe gareeyaan channelkaaga, khasaaro weyn u keeni doonto. Number 3 samayso 2-step verification ama amniga channelkaaga. ugu dambeyntii haddii aad jeceshahay content noocan oo kale oo aanad horey noo soo subscribe gareyn, waxaa ku codsanaa inaad channelka subscribe soo saarto. waa is salaamaya. Peace.